magaaladeena ee dabku uu baabi'iyey hantidoodii oo xalay hadda ayna maalqabeen ahaa caawa hadda ayna laga yaabo inay intooda badani caydh tahay dadka muslimiinta ay meel ay joogaanba siduu nebigu sheegay waa ka mathali ljasad alwaaxid waa jir keliyahun ida ishtakaa cudwun minhu tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahar jirka inta kalena xubinkaa xanuunsaday xumaddu ugu yeedhayaa ee wadaagaya marka fi lafraaxi waalaxzaan yashtarikuun dhibka iyo dheeftaba way wadaagayaan dadka muslimiinta ahi waxaan filayaa dadka halkaa waxuun ka soo gelayeen mid ka shaqaysanaya miduu sii biilinaya mid saxaadayaba iyo miduu masruuf iyo biyo iyo xaqal ciid u diray inaanay boqolaal kun oo qof ka yarayn boqolaal kun oo qof kama yaraa hantidaasina malaayiin dollar waa gaadhaysa masaafadana waynu arkaynaa dee waa suuqyadii geeska africa u waaweynaa mid ka mid ah markaa saddex arrimood ayaa inagala gudban inaynu kaga qayb qaadano hawshaas intaa wax ku dhaceen mooyaane inteenna kale ka soo hadhay ta u horeysaa waxa weeye adducaa inaynu u ducayno oo ducadu dadka muslimiintii markay kala maqayin waa la isu aqbalaa ducaau lgaa'ibi cala algaa'ibi mustajaab labada kala maqan ducadooda waa la isu aqbalaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam haddaad walaalkaa u ducayso adiguna ducada malaa'igtaad ku helaysa oo malag baa ina odhanaya aamiin walaka bimil allaha ka aqbala adiguna inta aad ugu ducaysa in laeg baad leedahay ducadaasi aad bay muhiim u tahay oo welibana waa waktigii ducada loo rajo badnaa in la aqbalo ramadaan iyo afurkii iyo soomkii iyo salaatuleylkii midda labaad aynu kaga qayb qaadanaynaa waxa weeye dejin ducada dejin baa raacaysa dadka in loo sheego qofka muslimkaa inuu dheer yahay ummadaha shisheeye inuu rumaysan yahay qadarka qaladbaha iman karoo sababba dadku ha u noqon karaan laakiin wax adduunkan ka dhacoon ilaahay sii qadarin ma jiro marka qofku markuu qadarka rumaysan yahay yartaaxu baalo waxaan inaanu gafaynin buu ogaanaya ee kollayba uu sii qornaa marka dejin baa loo samaynayaa waxaa la leeyahay kollayba wuu qornaa sida ay u qorantay inaad dhiman doonto marka qadarka rumee taa saddexaad aynugu daraynaa waxa weeye deeq intee dadkeenna wax u soo hadhay inaan waxba gaadhin debadii iyo guuda meel kastoo la kala joogada dee dadkii la taageero dabaqadahooda kala duwan qof wax buuran buu haystay qof meel dhexaad buu ahaa qofna in yaroo dee masruufka inuu ka soo haraabay ahay markaa qof waliba wixii uu helaya inuu kaga qayb qaato amaah iyo aaqiibo labadaba oo dadka qaarkood waxbay bixin karaan oo wax waynu siin karnaa waxaan siinta ka dhicin waxa la yidhaahdo amaahda oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay qofka haddaad laba jeer u xamaahisa inay u dhiganto adoo siiyoo kale waanay dhici karaysa haddaad qofkii siiso amaah oo uu ku shaqeeyo boqolkiiba konton ay wax u soo saartood mar labaad ugu celiso boqolkiiba konton kale ay u soo saarto dee wixii aad amaahaysa wax leeg baa ugu soo baxay waa adoo siiyoo kale dadka had iyo jeer ganacsadahana ama qofka ganacsadahayna waa xirfad le weeye aqoon buu leeyahy marka haddii wixii faraqabsiga ahaa loo dhiibo siduu markii horeba u bilaabay ayuu u bilaabi doonaa halkii u gaadhsiin doonaa labada arrimood ayaynu isugu daraynaa waa saddexda arrimood aan idhaahdo ducada iyo dejinta iyo deeqda way ka soo kaban biidn illaahi tacaala xilka u weynina wuxuu saaran yahay ninka magaalada u sarreeya iyo ninka waddanka u sarreeya labada qof waxa ay iska kaashanayaan dadkan in guryo loo sameeyo oo guryahoodii si habaysan oo hagaagsan loogu sameeyo oo weliba iyagoo dabaqyaha oo isa saara dowladdu wax bixiso dadkuna wax bixiyo dadkii hareeraha deganaa ee laga cabanaya suuqan jidadka xidheen dee inay sidii ku soo noqdaan maaha meesha waa in dabaqya laga dhigaa dadkii loo waasiciyaa dhul bannaan baa jira magaalada dhulkaana la habeeyo suuqyo kala fidsan laga dhigo waxaa la beedkaaga sallad keliya lama wada saaro beedkaaga haddaad sallad keliya wada saarto mar qurub buu burburayaa adduunyada waxaa la sameeya magaalada waa la kala dejiyaa oo suuqyo badan baa la sameeyaa mandiqad waliba suuqeeda ay leedahay
marka meelo badan oo iska xidhan baa jira meelo badan oo bannaan baa jira dhulkaasaa la dhisayaa xataa dadka lacagta laga ururin karaa loo dhisayaa marka wixii iscidhiidhaya waa in la furfuraa si wadooyinka ilaahay u yimaadaan marka meelihii ay ku ganacsanayeen dadkan in la tuuri maayo ka kaco iska taga un arrintu maha way soo taagan yihin marka wax loo dhiibo in la idhaha halkana ku ganacso baradanna fadhiiso beyd hagaagsan isagaaba marka dambe mustaqbalka dhisan doona marka waxaynu u baahan nahay waxaa la yidhi qofka waxa soo socda aan garanin waxa jooga ma garto aragti dheer baynu u baahan nahay iyo istaraatiijiyad maamul iyo shacabba la iska